waxaa magaalada muqdisho maalmihii u dambeeyay lagu afduubanayay carruurta Soomaaliyeed kuwa oo afduubanaya kooxo ka ganacsada carruurta kuwaasi oo u iibgeeya shirkado ku yaala Xalane waxaana carruurta laga afduubtaa degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir sidoo kale waxaa la qabtay carruur fara badan oo la soo afduubtay waxaana qabtay saldhigyaasha ku yaala Xamar waxaana afduubkaasi lagu fashiliyay dhowr nin oo ka ganacsanayay carruurta una iibgeeya shirkado ku yaala magaalada Muqdisho waxaana afduubka ugu xoogan oo ka socda degmooyinka Wadajir, Dharkeenley, Hodan iyo Warta Nabadda iyo Kaaraan laba maalin ka hor waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay ambulance siday carruur fara badan oo ka soo kixisatay xaafado kala duwan waxayna u waday xerada Xalane mid ka mid ah waalidiinta ku magaalada Muqdisho ayaa ka cawanaya dowladda federaalka Soomaaliya waxaana yiri sida tan waxaan leeyahay carruurtiina haddii ka maqnato waxa kula xisaabtamaysiin dowladda federaalka Soomaaliya qaasaha madaxweyne Farmaajo oo keena shirkad carruurta gadanayso maadaama tay sanadkan kala guur xilli doorasho la socdo marka dadka dowladda federaalka waxay keentay marka in carruurta gadato horena waxay u gadan jidkii xirtay bacdi ciidamadii mushaarki la gooy haddana carruurta gadanaysa shirkadaas waxay ku taala Xalanle ku taala ka waxaan leeyahay dowladdu ay ku socotaa hanaan qaldan leeyahay marka ummadda Soomaaliyeed soo jeesta shacabka Muqdisho soo jeesta carruurtiina shirkadaas dowladdu la timida inay gadato ayaa loogu talagalay carruurtiina dowladana waxay ka ogtaan carruurtiina la gato waxaana leeyahay marka shacabka reer Muqdisho hurdada ka kacaan idin leeho war carruurtiina ilaalashado war xaqiina soo dhacshada waxaaba leedin deeda matalaadi gobolka Banaadir haddana carruurtiin la gatay tim waalidiin fara badan oo u wada Soomaaliyeed dhalay ayaa cabsi xooggan soo wajahday kadib markii carruurta ay dhaleen laga kaxeysanayo wadooyinka Muqdisho iyaga oo loo diray waxyaabo ay suuqa ka doonaan iyo haddii ahaan lahayd haddii dugsi loo diray